dhegaystayaal ku soo dhawaada sheekadii taxanaha ahayd ee dawo jacayl waa dooq. qaybtii 11aad ee sheekadan waxa ay noo joogtay. waxaan u maleynayaa in la gaaray waqtigii saaxiibadeena ay bixi lahaayeen kaliya anigana waxaan u maleynayaa waa aan daahay ana si dhaqso leh u baxo aniga xaafadooda aana baxo saaxiibta saarana oo si maraasay jecelkeeda u macsalaamayso. saara saaxiibay soo dhaqso waa bixinaaye. haaba inta aadayna saaxiib inta aadayna meel ka gacda maanta waa maalinta saaxiibadeena ay bixi lahaayeen ma ogid. waan ilaa saaxiibon quraacay sugan soo labistay. hadda saaxiibay soo dhaqso adigu bilaashaas waa carfisa maalin kaste. waata saaxiib xiriirkaada. okay saaxiib diyaaraan ha soo bax. maanta ka fiican soo dhaqsatay maanta ku soo labisay. ha saaxiib maanta kalsooni buuxda haystaano. waaw saaxiib kalsoonida buuxda anaga dhan wada haysanaa bal soo dhaqso bal soo istaag. okay na bixi saaxiib. haatan ku soo dhawaada qaybtii 12aad ee sheekadii dawo jacayl waa dooq. hodan iyo saaraan waxay gurigiisii ka sii qaadeen kaniif iyo saaxiibkiisa mukhtaar. garoonkii ayay si degdeg ah ku gaareen waxayna la kulmeen diyaaraddii oo goordhow ka cirabta. goobtii ayay isku macasalaameeyeen si farxadi ku jidho. oo dhammaan asxaabay hodan iyo saara kulligiin dhammaan waa idin mahadcelinayna maadaama aad noo fududeyseen alaboorka dhimashiisa tigidhka qaabka tigitaanka waxyaabo badan ninka saaxiibka aniga runaantii jiradiis markaan maqlay runaantii hore aad baan ugu ololiyey waayo ogtahay oo qarashira iska jiray dhinaca qarashka qaliinka lacagtii markor oo gaarina iska sii raacnay oo xaggaadna dhibaato badan baa nagala dirsilay runaantii xilli roob baa lagu jiray carrada dhiiqmaana sii marnay ninkan saaxiibkiina waxaan usunta ogtiin marka aad baan kugu mahadcelinaya dhammaan waxaa soo fangarayseen aad noo fududeyseen aad baan kugu mahadcelinaya runaantii idinkuna macnaha waa idin mahadcelinaysan nagu soo maadaama lamaanaha noqoteen labadana nagu soo xiriirteen xagga dhankaas jacaylka iyo lamaanaha dhisitaankaasna aad baan kaga mahadcelinayaa labadiina dhammaan. may abo waxaas wax dhibaato ma lahan hodan asxaamadeeda aad ay u badan yihiin marka aad ay u beerjelicsantahay kaliya maanta waxaa kuu muuqda adiga asxaanka ee labadiina inii samaysay laakiin waxaa ka badan aniga waxyaabaha badan iisoo samaysay marka dhib malaha waxaas in loo qabto maahan saaxiibtii aad iyo aad ayay wanaagsan tahay. okay dhammaantiin waa mahadsantihiin waxay la tahay markaan waqtigan tegi lahaa ayaa la gaaray runtii meeshaan waxa fududeeyey waan saariyo hodan weeye hase yeeshee galabtii meeshaan mahadcelin ayaa labadiina ayaa naga mudantihiin haddii koleyta oo xilliga tegitaanka isma dhaafno khayr baan rajeynayna dhammaantiin. laakiin in la isku madceliyo inay ka reeban dadka asxaabtaan inay isku madceliyaan madcelintana way ka reeban tahay waa waxaan isku leenahay waayo waxaan ahaa dad saaxiibo ah haddana dad noloshooda qaybsanaya marka in la isku madceliyo waa laga fiican yahay haatana qar ayaan rajeynaya caafimaadka baxa caafimaadna kusoo laabta. okay dhammaan waa tegayna kol waa iska sii baxayna labadana kol xagga inta joogtana waa in la soo xiriirayna idinkuna aan ka seexanahay moodinina marka hadda waan iska sii tegayna hodan biska dhan marka ninka xoogaa waxanuunsiyay marka saan dhan waxa uu shumis ka badan marka intaa biska ka yar intaa ka bacay ninka kale aniga bis ayaa noo jeeda ayaa umaleynaya laftirkaada ma yareysatid. saara bye bye adna sidoo kale saara is ilaali hodan adna gabadh isoo aniga saaxiibka aanan ka ballan qaadayna si ogaado adna saara is ilaali. okay taasi waa balan aniga igu ogtahay adna dhankaada ilaali hadda ii ilaali saaxiibkayga is ilaali aboo mukhtaar. okay dhammaantiin qof uu mahadceliya mana laakiin aniga dhammaantiin waa idin mahadcelinaya kulan dambe wanaagsan ayaan leeyahay waana baxaynaa bye bye. sidaas ayayna ku kala tageen kaniif iyo mukhtaar. muqdisho ayay u duuleen hodan iyo saarana gurigoodii ayay u soo noqdeen. dhanka kale maxamed wikaal waxa uu doonayaa inuu hooyadiisa maamo leylo kala hadlo saara arrinteeda oo uu ka helay qudhiisu isla markaana uu jecel yahay inuu guursado maadaama uu aaminsan yahay in aysan diidin karin oo uu yahay nin maalqabeen ah oo lacag leh. maamo leylo ayaa ku faraxday arrinta uu u soo bandhigay wiilkeeda maxamed wikaal wayna ka ogolaatay waxayna u ballan qaaday inay u doonayso gabadhaas. wallaahi gabadhii saara ahayd aadka ii qanaysay wayna hooyada aadaa la tashadaa in aan guursayin kale hooyada hadda iska daa tiraahdo waa iska daynayaa laakiin inisdhihin hooyada ogaa gabadhaas gabar fiican waaye iska daynayaa laakiin inisdhihin hooyada ogaa gabadhaas gabar fiican waaye hooyadii aadayaa waa u sheegayaa gabadhaasaa ka yaraa leeyahay gabadhaas maanta liiba doonaa leeyahay meel uma socda hooyo leeyahay hooyo ii waran wiilkayga maxamed waa fiicana seeta adiga xaaladaada iiga warran. hooyo waa fiicana wallaahi hooyo waa ku xiisay hooyo
xaaladda ayaa sheekay hooyo. wiilkay baryahan waa lagu la'yahay maxaa dhacay xagee aadaa waa joogay hooyo meel ma aadin meesha magaalada iskala qabsaday magaalada ii macaanaat hooyo. wiilkay magaalada said baa u fahantaa u malaynayaa haa hooyo si aad u fahmo hooyo dhalinyaro xataa barbarta hooyo. maxay tahay wiilkayga laakiin maanta marna waa qoslaysaa marna muruga kaa muuqata maxaa dhacay hooyoy maya aaba maaragta wuu ficnaa xaaladiis marka sitay aad u ficnaay. haa wiilkayga waa fiican yaha laakiin maxaa adii qarqarinaysaa maanta masaanaa u maleeya maya hooyo wax ma qarqarinayo hooyo sidaa uu sheegaa. wiilkay maxaa dhaca hoosaab iskula hadashee maanaa wax iga qarsanaysaa maya hooyo inaa wax kaa qariyo iyo inaa wax kuu sheega midna ma jecleen laakiin hadal ay soo riixoy hooyo. wiilkayga maxaa dhacay waxa kusoo riixay iima sheegaysa miya wax aan ii sheegi karin miya oo laiga qarinaya aniga bas waxaa kula qaban kara maaha wiilkayga wax kasta anaa kula qabanaya ii sheeg wiilkayga maxaa dhacay hooyo wax la-aantaa soconaya ma ahanba haddaa adiga la socon ma wada soconayaan waxaasi. wiilkay bis maxaa la qarinaysaa ii sheeg anaa kula dhameynayo wax kastee hooyo saas waa kugu jeclaay hooyo haddaa kuu sheego u sheegaa miska daayaa u sheegay like iska dhaaf. hooyo haddaa si dhafta kuu sheego aniga gabar baa ka helay. haye wiilkayga waa kaa filaay gabaraa ka helay hooyo ma ceeboobe. may wiilkayga maada ceeboobin gabaraa ka helay bismillah farxad ayay imaatee hooyo farxad miyaanaysa saxdii hadda sida saxdii farxad miya hooyo. wiilkay farxad waay laakiin gabadha ii sheeg iisoo dedeji hadalka haddee farxadda aniga hooyo waxaa isdhaayay waxaa siiyo hadee kugu maqasho babisa soo qaadansa kula dhicisa isdhaayay babis wiilkayga babis maa ku qura waa ogeeda nimankaa imaanaysa waxaa kaa ballan qaaday inaa meeshaan ku guursatid soomaaliya ku guursatid wiilkayga ii sheeg gabadha yaa waaye reerkee ka dhalatay ma taqaana adiga hooyo gabadha reerka ka dhalatay ma aqaani laakiin gabar aad ii qanciso waayo aad u taqaanin waa hooyo gabadha haddana aqaanaa yaab waay wiilkayga ii sheeg magaceeda kaliya ii sheeg wax kasta anaa kuu dhameynaye hooyo gabadhaas iska dhaaf hay dhihin laakiin haddaa kuu sheego maya wiilkayga haddii xuntahay xatee gabadhaas waa kugu daraa ku dhehe hooyo maxma gabadhaas waa ogaa gabar aad u fiican waaye gabadhaas haddaa kuu sheego saara waa saara oo hodan saaxiibteed ba haa hooyo hodan saaxiibteeda waaye wiilkayga waa kaa filaya inaa meel fiican ka dhaceys meel fiican ha ka dhacdo nasiibkaaga waa fiican yaha ko dheh hooyo ma fiicanahay hadii gabar fiican maa dalbaday wiilkay gabar fiicana horta heshay laakiin anaa kuu dhameynayo insha allah barnaamijkaas oo dhan anaa kuu gudagalaya adiga ka jiifa wiilkayga waxaas ha u bixin hooyo hadda niyada ma igu dhisaysa mase sax waa hadalkaas maya wiilkayga waxaa adii jeclaataa annaka waa inaa jeclaana waa ku qasbannahay wiilka keliya ee reerkaa ku tashanaataa wiilkayga waaya hooyo waa maasanta waa kaa filaya hooyo hadalkaasi hooyo haddee anaka hadda oolaysan lacagna dhibeynin waxaysan dhibeyn noo doona gabadha indhalaa hoosha dhamaysana hooyo wiilkayga laakiin waa in aabbahaa lala socodsiiyaa arrintaas marka hore mase ma fiicna sidaas hooyo aabbadaa ka xaniyo badan be aaban kaa maqan xaa ku falaysaa adileed noo dhameyna hooyo wiilkayga anaa ku dhameynayo laakiin aabbaha ayaa la socodsiinayna insha allah wax kasta anaa ku dhameynayo gabadha reerkeedana anaa aadi doona waaya inta aabba la socodsiin ka hor aabba wuxuu leeyahay nijaaska kuxaas muu bilaabe adi noo dhameeya hooyo maya wiilkayga aabbaha anaa kaa qancinayo oo kaala hadli doona insha allah waxaasna ma dhici doonaan gabadhaasna waxaa kuu ballan qaadayaa inay xaaskaaga noqoto waaya hooyo waa mahadsan tahay maxamed wikaa waxa uu gudagalay isdiyaarin iyo labis wuxuuna soo xirtay labiskii ugu qaalisanaa uguna quruxda badnaa si uu u soo jiito dhammaanba qoyska saaraa maama leylo iyo maxamed wikaa waxay aadeen gurigii adeer kabuur oo ah saara adeerkeed si ay wala hadlaan una doontaan saaraa wiilkayga maxamed nakeen cidda ayaa aadaynaa si aan gabadhii u doonano waaya hooyo anits waa kaa filayay hooyo laakiin istaarka ma ii saxsano bisinka wiilkay waa nuurees ayaan ku dhahay lagama harayo nakeen hooyo wallaahi si fiican ii fiirino tinta xataa maanta dhan saa muraad iskugu fiirina waa daalay si fiican adina ii fiiri hooyo wiilkayga waa kaa muuqataa waa kaa filayay inaad sidaan oo dhan iskusoo taagtaagaysa wiilkayga laakiin nakeen waa dahnay waaya hooyo laakiin manigisada ordaayo hooyo saaid wiilkayga waaya hooyo nabixi gaariyan un raacayna umalinayaa hay wiilkayga darawalka noogu wac laakiin waraaxa mari ha maama xaafad ayaan u soconnaa gaariga noo soo kici nakeen waa dahsannahay waa tahay haddeeran gaariga soo kacinaa wiilkayga maxamed guriga noo gargaraaca waa kan ayaan filayaa hooyo adi inaa gargaraaca oo ka haban aniga hadda waxaa ka baqayaa in markii laga furo laga naxo hooyo may maama anaa soo gargaraacay waayo wax albaab garaacaya war waa anigii ka waran mudane xaaladda
fiican wiilkayga haye maxaad dhawo jiray aan dhib kale ma jirin marti qaasaan ku waday bal martida iga gudoomin adiga ay waayo yaawe aawa waa kuwaan soo gudba maama soo gudub waa waray master leyla maasha allah soo dhawaada maxaa qalaa giil maa qalaa ari maa qalaa ustaad war soo dhawaada dadka ku faraxsanahay baa tihiin bismillaahi raxmaan maxay mar hore inay soo digtaan bay laakiin imaanaysaan maya walaalkay kabuur taas dhib ma lahan maadaama aad derisnahay aan issoo booqan wax dhibaataa ma lahan waa caadi kolley waxay ila tahay maanta dan ina u socotaan waa soo dheeraateen soo dhawaada horta soo fariisa kuraas inkastoo soo olin uriya salliga meeshaan noo dhig fariista halkan soo fariista waaya walaalkay dhib ma lahan koleyto salli iyo kuraas waa isku mid maadaama aan sheegay dad derisaa nahay xaq aan isku leenahay wax kastoo kuu yaala waa inaan kuula fadhiisanaa maasha allah waa si fiican bay qadariseen waa sharafteen allah idin sharfa sharaftaas waa isku leenahay walaalkay marwaleela waayahay soo dhawaada kolley danta soo gashay maxay tahay maanta iyo intaas soo lugoodeen haddii xataa wax yar ay iska yihiin wax dhibaato le aysa jireen anaa i yeeri kadhen anaa idiin imaan lahaa haye maxaa jira bal soo daaya arrimaha maya walaalkay koleyto horey waxaa loogu mahmahnin dan le ma daalo anakaa dan leh inaan kuu imaano waan ku qasbannahay in adiga kusoo lugoyna ma ahan waxaa kuugu imaanana wax hadda cusub maahan waa wax horey usoo jiri jira waa dhaqan hiido hore waa wax soo jireena koleyto ma waxaa layidhi damiin far waaweyn baa wax loogu dhigaa anna waxa weeye haba waxaan dabooleysa ma fahmi kara marka soo bandhig bal arrinta socod maya walaalkayga sheega haddii aan kuusoo balbalaariyo warka ama aan kuusoo dedejiyo arrinta aan u soconay koleyto ujeedada inaan ka hadalno waa muhiim maadaama gabar kuu joogto wiilkaygana waa ujeedaa maxamed inuu la socdo marka waa arrin soo jireena gabadhaadana ayaan doonaynay macnaha gabadhaada inaan kaa guursana ayaan rabnaa horta horeeto arrin xun maaha laakiin sida caadada lagu yaqaano soomaalida lama arki jirin haween kale soo doonanayo marka aaway odayaa saaxiibada ahayn oo xaaji aaw maya walaalkay kabuur waa la socotaa xaaji inuu maqan yahay oo dibadda uu jiro markay aniga meesha habar iyo odayba inaa aniga meesha ka ahay oo wax kasta oo ciyaalkayga u baahan yihiin aniga meesha aan wado markay aniga hadda gabadhii soo doona xaaji maadaama uu maqan yahay aniga meesha oday ka ah okay waxaa layidhi soomaalida waxay tiraahdaa sarta hadaa weydid saa ka badin weysaa la yeelaa kolley xaaji haddii la waayay bun haddii la waay bedelkiisaa la helaa anaa taagan haddii aad taagantahay mas-uuliyadda qaadiseen xaashina dib ayaan ka wada hadli doonaayo dal dhow ayaa jira taleefon baa ka wada hadlayna gabadhaydana kolley cid adinka idinka wanaagsan oo aan siin lahaa ma jirto daris dad intaasoo sano wada deganaa baan nahay dad macrifo dheer isku leh baan nahay dad intaasoo sano isyaqaanay baan nahay cid idinka wanaagsan ama wiilkaa ka wanaagsan oo aan gabarsan lahaa maba jira ila tahani laakiin soomaalidu waxay tiraahdaa nin yare intuu geed ka booda ayuu talo ka boodaa ninkan waa nin da-yar haddana waxa weeye nin weli dhalinyara caqlidiisa ku filneen waxaa la sameynaya ama ay usoo doonteen waa qof dhan oo wax iska cayaar ah ama wax iska sahlan maahan oo mas-uuliyad baa laga rabaa maanta kadib inuu qaado waxaa laga rabaa inuu reer dhan odeegiis noqdo waxaa laga rabaa inuu aaba xaafadeed noqdo marka intaasoo dhan inuu kasoo bixi karo bal in kale iyo wax ma wareysato wiil walaalkay kabuur waa arrintaada inaa arrintaas tidhaahdid waayo sheegay waxaa tahay waalid wax dhalay oo gabar ayaa kaa baxayso gabar ayaan kaa wadanaynaa maadaama wiilkayga haddii uu ciyaal yahayna adiga ciyaal ahaan aa u aragtid aniga ayaa ka dambeeya marwaleelana waa taqaanaa kuleet see waad adag tahay gabadhaadana inaysan naga soo eed sheegan ama meel cidlaa aysan ku dhicin ayaan kuu ballan qaadaynaa inay gurigeena ku faraxda maahana aysan murugo kala kulmi doonin waa run horta hore taas waa jirdhaa laakiin waxaa jirdha soomaalidu waxay yidhaahaan xeerbeeg wax lira waxay ku qaybsadaan baa jira dadku wixii hore u jiri jiray ama dadku gabdhuhu ay ku kala wadan jireen ama dhaqan ahaabaa jira oo soo jireen ma jiro wiilkana gabar kaa soo doontay oo anigaa la kaalmeynayo ama anigu gabadhayda 5 qofood ma siin karo wiil baa siinaya wiil waxaan rabay saas u bannaan oo ku wanaagsano aniga isaguna aan marbal si gooniya xataa aan u wada sheekaysano haa walaalkay waa la sheekeysanaysaa wiilkaygana waa arki doontaa hadalkarnimadiisa ayaa arki doontaa oo adiga ayaa ka heli doona wiilkayga haatanna gabadhii waxaa rabnaa maadaama aad dhahday waanay siinayaa inaan usoo weli shiiqin waa ujeedaa inuu nala socdo saacadanba inaan dhammeeno wixii gabar laga qaadan jirana inaan kugu wareejino waa diyaaro kolley anugu intaas dad aan macrifana oo isku dheeranayo baatiin oo maanta inta gabar iga soo doonateen intadiin diida adikoo sacba maran inaan celiyo horta lagama yaabo horta hore waa gabadha afraadaan bixin laakiin kuma bixin yacni sida hadda aan sheegayo kale adiku dada macrifanahay aan waxba ka diigi karin baatiin
oo hadalka hadeer aan leeyahay buuqa wiilka ama saas iyo saas yani waxaan ka wada adkeyn oo kaliya sababtoo ah waa gabadhii ugu dambeysay gabadheen ugu yarayd waa kolley waa ujeedaa gurigii dhan waxaa la wareegeysaan iftiinkiisi soo diyaar garooba wax walba taman dhammaanana insha allah waayahay walaalkay waa mahadsan tahay iftiinkaas iftiin ka badan inaa heshid ayaan filayaa haatanna waxaan rabnaa shiiqay maadaama uu nala socdo inaan arrinta meeshaan isla daqiiqadanba aan ku dhammayno waayahay saa jeceshiin maama leylo waxay la socodsiinaysaa gabdhaheeda hodan iyo saaxiibadeeda saaraha in maxmed wikaa uu aroosi rabo isla markaana loo baahan yahay in la soo gado aqal aad u qurux badan gabdhahaygii hodan iyo saara waan ii salaamseetiin waa kaa qaadna hooyo seeta adiga gabdhahaygii waan ii fiicana xaaladihiina ka sheekeeya maxaa meesha lagu hayay hooyo waa iska sheekaysanayna wax maana heenin gabdhahayga arrin farxad leh ayaan ii wadaa wiilkayga ayaa guursan raba mar dhow wow kiyo guursan raba walaalka ma guursan raba haa gabadheedii hodan walaalka ayaa guursan raba laakiinse qofku guursanaya ma weydiinaysiin waa waray walaalkii maa guursanaa hooy gabadha shaaba nasiib leh hooy yaa waay gabadhaas gabdhahaygii waa gabar ka imaanaysa jaamacad mar dhowna waddanka imaan rabto markay saas daraaddeed waxaan ii sheegayaa wiilka aqalkiisa inuu soo adeego waa soo diyaarinayna wax kasta anaga nagu halay aniga saaxiibtay saara wax kasta waa hagaajinayna wax kastana waa habeynaynaa hooy waxaa noo sheegtaa goormuu dhacaya arooska mise goorma imaanaysaa gabadha waaba arrin farxad leh gabdhahaygii maalmo kadib ayuu aroos ka dhacayaa laakiinse waa aqalka waa inaa hay kasoo dhigtiin aad soo adeegtiin lacagtona ninka ayaan ii dhiibayaa waa diyaar hooyo taasi gabadheedii hodan lacagta boorsada kasii bixi shirkadana lacag kasii mara aqalkana haliiga soo qurxiyo okay hooy aniga waa haleey aniga saaxiibtay saara anaga hadda tagayna soona adeegayna aqalka iyo waxaa noo dirtay hooy taasna waa ballan aan kaa qaadnay abaay hodane lacagta dhanaa qaadayna haddana shirkad maa lasii mari rabaa saaxiibey haa saaxiib waxaa muu lacag ma baahna ma nugu filne see camal cuud bil halahaanaaba ku filana saaxiibi maxaa dhacay maya intaan hata waxaa malaynaya inas aqal keliya aysa goyno wixii kalena way sii dhimayihiin saaxiibi maxaa dhacay aqal caadi ma la rabo miya koodaha maa lasoo gadi rabaa maya aqalada meeshaan ugu qaalisa inaan soo gadnaan rabnaa waa ogtaa walaalkii aan adduunka u jecelnaha walaalkeena wiil kalena ilama dhalan saa ogtaha marka waxaa rabnaa aqalka meeshaan aqalada ugu qiimaha badan inaan soo gadno waxaan anima u malayna lacag filanana tahay abaay gabartaasaa nasiib lakoodhe kulli soo bax buu iska baxeenay hodan iyo saaraha suuqii ayay tageen waxayna ku indhasarcaadeen aqaladii suuqi yaalay oo waxay kala garan la'yihiin mid ay gadaan iyo mid ay ka tagaan abaay aqala iga dheh saaxiibey waxaana aqala magaalada miyay ooli jireen weliba ayadoo lagu sameeyey magaaladan gudaheeda abaay qurux badanaa oo iga dhex baxeenba ay ka dhan ها صاحبي لكن واحنا ورا ماشي مو وجهي محيت wax aqal waxaan ma arkay adi doqol aanta kugu nac waxa dham arkiismiya maxaa in dhoolama taadi laakiin saaxiibay saara adiga ka jeclaan aqalada ana ka qaadatid saaxiibay dooqiga du shaqeynayo aniga saaxib kaasaan dhihi lahaa hal qaad waa walaa uu qanci aad u qurux badan yahay laakiin sub lacagta gorgorinaayay waan filay dooqiga inuu ku qancinayo saaxiib qof kale dooqsi qancina inta jirin ba u maleynaya waxa ila taa walaalkiin inuu dooqiga qancin doono waa ku qasban yahay hooyo kaa aqalkii markaan dhigay oo habeeyey sida ugu nuurayo qolka gabadhaydii aad buu u qurux badan yahay waxaa filayaa labadiina inaa isku dooqtiin oo labadiina alaab fiican iisoo dooqdeen maantay mase saaraa keligeed waaye hooyo aqalkan waa dooqa saaraa kayga maahan gabadhaydii saaraa aad bay dooqeeda aan oola dhacay haa hooy gabadhii lagu arasaa runtii aad iyo aad u nasiib badan walaalkiina aad sidoo kale aad buu u nasiib badan yahay saaxiiba saara adigana mid kan kasii qurux badan ayaan kuu rajeynayaa waa wala waraf iyo shimbira war iskuma haayaan aqalkii ayada lagu aroosi lahaa bay soo adeegtay markaasay dhehaysaa hooy naagtii lagu aroosay aad bay u nasiib badan tahay wala wixii jiraa mar bay soo bixin adeer kabuur dhankiisa waxa uu doonayaa inuu u sheego gabadhiisa saaraha inuu bixiyey isla markaana uu siiyey maama leylo wiilkeeda maxmed wikaa wale waxaa la yidhi adoo yaabunba yaabisa ku jirto hadda anigaaba haddeer la yaabana diintan xaggee kala bixin doontaa xaggee wax kaa soo geli doonaan laakiin irsaaqadii ilaahi waa iska furan tahay inala yarsuqu man yashaa biqayr xisaab baa layidhi waa kana haddeer meel bay lacagta iskaga kay soo gobatay waa tan lacagta hadda xaggee kala dhiga qaar boorsada ku rid waa ka soo haraysaa qaar santuuqa geli waa soo haraysaa dukaanka qaar geysa waa soo haraysaa war waa la yaabay aawa saara adeer kaalay horta horeeto waa maanta farxad aad u weyn baa ku haya anu laftirka farxad baa la walwaalana haddaa kuu sheego farxaddaa ku haya adi laftirka waxaa maleynaha qosol inaad jeego u dhacay adeer maxaa waay farxaddaasne horta rafeera jaakadaa watasee ku haya waaw adeer waad nuuraysaa xaal hudheed maa kasoo heshane waa caytanaysaa maanta ester laga soo gaday abti
adeer intee lacagta laga keenay horta waa farxadda aan kuu sheegay lacagta jaakadan kaliya maahane lacag ka tira badanna waan feer borsaas halkaas lacag bay la taallaa waaw awaay adeer markaan waa taajiraynaa biyaaba noo soo dhawaan karawo dadka waaweynkaa la simanaynaawe laakiin adeer su-aalan ku weydiiyo weydii godhay adeer buracbadeedka ma ku biirtay may waxaan lacaga ujeeda boorsada halkaas la taallo diintii oo dhan dukaamadii nagu lahaa iska soo bixiyo waxaasoo dhan nasiibkaaga ku helnay gabadheed maalintaa ii dhalatay cidda oo dhanba waxarba uga joogtay xoolo adarna ujeedaa adiga baawal fartuuma wataa sidaada baabakaay risaaqad baa iska soo galgashay marka ii dhalatay soo gashay aniga nasiibkayga adeer ha nasiibkaaga gabadheed laakiin sidee adeer nasiibkaaga soo soconayo maanta wuxuu dadka nasiibka ilida uga soo galaa daaqadu kaaga soo galay gabadheydi mataqaanaa ciddaan dariskeena ee reexaasha cumar haa adeer hodan iyo reerkooda maho haa hodana taqaanaa miya wiilka mataqaana miya maxamedna haa adeerkii maalin hor imaanaya waa ka saasine maasha allah ka waran wiilkaas gabadha u guursanaya ka waran gabadha uu guursanaya kolley waa gabar nasiib leh gabadhaas nasiib kale oo wiilkaas nolosha iyo farxadda iyo wax walba la wadaagaysa gabadheydii ka waran waa adiga nasiibkaas yeeshay adiga farxaddaas nasiib u yeeshay adiga aniga inaan farxin nasiibkaygii noqday gabadheydii aad iyo aad baa kugu mahad celina adeer maxaa dhacay laakiin guriga maa shaqaale ka noqon waa ogtaa adeer macaan subaxii ilaa iyo duhurkii aan dhigtay iskuul sideen ku shaqaynaya aniga shaqaaladii waxay sheegaysa maxay tahay gabadheydi waxaad noqonaysaa suldaamadii boqoradii iftiinkii gurigaasaad noqonaysaa adigaaba laguu shaqaynaya adna shaqaalaha ka sheekeynaysaa waxaad noqonaysaa gabadha nolosha la wadaagtay wiilkaas maxamedo ina xaashi cumare gabadha nolosha la wadaagtaad noqonaysaa gabadheydi adeer sidee u hadlaysaa aniga hadalladaada uma begin soomaalidu waxay tiraa gabadheydii qofka hadalka waa loo sara maraa hadduuse garan waayo sankaa loogu jiidaa gabadheydii hadalkayaan maanta o dhan waxba kuugu wareerin waxaan kuu sheegayaa ogunta iyo gabagabada halkaataa lacagtaan aan haysto dhan waa sawriyadaadii waa ku bixiyey ma saacadda laga bilaabo bixin kaliya maana waxaa tahay xaaskii maxamed xaashi cumar baa tahay gabadheydii sidaas ogow ma adeer macaan aniga sidaas kaama filinaynin adeer macaan aniga gabar ayaan aha maxaa dhacay maad ila tashatid maad igala hadashid sidee nolosheeda adiga nagala tashan go-aan uga gaartay adiga miya aniga kula tashanaya maana adiga kula tashanaya biilkaaga markaa waxaa cunaysa keeni jira makaala tashan jira meeshaa ka keena kuriimadaada makaala tashan jira meeshaa ka keena see maanta adiga kuula tashanaa go-aanka nafsadaada dhan anigaa gaari kara wax walbo adiga kuu fiicanna anaa og wax walbo kuu xun anaa og meel xun miya inaan ku geenaya umalaynaysaa gabadheedi mise meel fiican maya adeer koriimadeeda iyo mustaqbalkeyga kala saar waan ku baryayaa waa khaldantahay gabadheedi kulley anigu meel walbo adiga aan ku geenayo meel adiga xumaan aan kaaga wada ma waa meel wanaagaaga ku jiro ma meel aan jeclahay inay noloshaada ku fiicnaanayso ama aad ku hodmaysid oo noloshaada unbaa ka fikiraya gabadheydi meel xun baa ku gaada wiilka yaa ka fiican ma rag buu ka foolxun yahay ma ka hanti yar yahay ma ka aqoon yar yahay ma ka raganimo gabadheydi maxaa jira say ila hadlaysaa mise arrimo kalaa jira ma adeer macaan ma ahan in adiga sidaasoo dhan igu samaysay adeer sidee u hadlaysaa adiga ma ahan aniga inaad nina siisitid adiga inaad igala tashatid ayay ahayd adeer macaan wax walba oo dhacaayo adeer macaan aniga jeceyl ayaan leeyahay jacayl way uga ciyaaraysaa gabadheydi yaa jeceshahay wiil ayaan jeclahay maxaa dhacay gabadheydi soomaalidu waxay tiraahdaa daahano hortiis dafanaa jooga waxaa la yidhi waxaa qarsatidna waa ku quransadaan horay anigii adigu sheeko waa noo dhex martay waanan ku weydiiyey gabadheydi waxaan ku yidhi wax allaale wax dhibaataa ama jacayl hadduu jira ii sheego waayo waxaan ahay kaliya maahay adeerkaa ee waxaan ahay saaxiibkaaga rumaad oo wax ku qarsan lahayd waxna iimaada sheegin marka waxaad qarsatay waa ku quransadaan saaxiibkaaga ama qofka aad jeceshahayna daahno hortiis dafanaa joogaa la yidhi oo asagoo hadduu intuu i yimaado ciddan ka hor oo isoo kaa dooni lahaa lagama yaabin in aan kuu diido marka gabadheydi haddeer meel aan ka laaban karo ma joogo cid aan aad iyo aad isugu dheernahay oo weji iyo xushmad iyo wanaagna dhex yaallo baan ku siiyey ciddaas cid ka wanaagsan oon ku siin lahaana maanta maba garanayo waana ku bixiyey sooriyaana qaatay haddana weji aan ku iraahda gabadhaydii nin kaley rab jeceshaayay hala ii soo sii daayo ma jiro oo waxaa la yidhi af wax cunay xishoobay soomaalidu tiraa waxbaa igu tegay gabadhaydii hanti baa cunay lacag baa cunay marka gabadhaydii hay caabeen inuusa ilaahay ku caabeen maya adeer been ayaad sheegaysaa adiga haddii aad saaxiibkay tahay ma nolosheeda ayaad qacantaada ku burburin lahayd weliba adiga arrin foolxumo badan ii qarinaayo teeda kale adeer adiga haddii aad ka fikiraysid waxbarasho iyo hanti wiilkaan jeclahaaba hadda wax wuu bartaa hantidana waxay ka imaataa waxbarashakooda hore lasoo barto haddana waxbarasho wuu wadaa adeer macaan aniga waqtigaan ma ahayn aniga waqti la isoo doonaya waayo aniga waxbarasho way ii socotaa abs xataa warka maanta igu soo celinaysa waa ku bixiyey
dhegaystayaal intaa haynoo joogto sheekadii dawo jacayl waa dooq la soco qaybteeda 13 ee sheekadan.